wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska maamul goboleedkan Gaarisa ayaa wada olole lagu ogaanayo tirada dhabta ah ee ganacsatada magaalada Gaarisa waxayna saaka bilaabeen in ay la kulmaan qaar ka mid ah ganacsatada wadada Biashara Road ee magaalada Gaarisa halkaas oo ay kula kulmeen qaar ka mid ah ganacsatada Abdullaahi Xasan Cali oo ku hadlaya magaca ganacsatada ayaa si weyn ugu mahadnaqay wasiirka iyo kooxdii ka socotay wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska maamul goboleedkan Gaarisa حفيز كناعسي كسعودة ولي أنا رجل مبدي حتى نور رئيس برضه من داس ونكسر دوينا وأنا كفر أحسن هاي مثل بعد وحيد مثل بعد وحيد واحد تدبي واحد واسكتر جيران لكن وحرمنا بيبها أو بالنادان يضب سوق خالما بدل وبعين هاي أنا قلبت الجن وأنا وبعين هاي قلبت الجود وأنا شغل وبعين مركب مقالة يأكل سن إن واحد لقبتان ورجينا أنا واحد قمكرنا إن شاء الله واسكتينا بسم الله الرحمن الرحيم مقالك وعدوك كليل جبل وعاهي وزيرك ganacsiga iyo horumarin iyo dalxiiska countiga Gaarisa maanta halkan waxaan ku bilaabaynay barnaamij ay tahay inaan diiwaan gelino ganacsiyaalka Gaarisa ka ganacsadaan hadda meesha hortaaganaho waa qaybta ugu ganacsi badan magaaladan ay ku yaalaan horseesaha waaweyn bacshira si loo yaqaan ninka hadda midagtayda taagan waa nimanka ugu ganacsi weyn oo hal qosto marka waxaan tala la qanay weekend kudi dadka ganacsiga ka sameeyo Gaarisa anagu is weydiinayno baahidooda iyo caawishooda bay noo keeneen haddaan dawladda hayna waxay qasab ugu tahay ay mas'uul ka saaran tahay inaan ka jawaabno baahidooda marka baahida waxaan ogaanay baahidooda ma ka jawaab karno haddii aan haysanin tira koob saxan asiga waliba Gaaris ogeeyadanahay horta waan mahadsantihiin waliba anigoo ku hadlaya afka rugta ganacsatada ama mataqana ganacsadooda kulatay waa dawladda horeysa horta dadka dhageystay sidoo noo sheegay ninka walaalkii Abdullaahi waa dawladda noogu timid maanta macnaha guryaheena ku ganacsanayna iyo dadkii macnaha maanta dhageysanaysa marka meesha waxaa nooga cad dad la raba inaan la shaqeyno anagoo macnaha ku hadlaya haddana afkii ganacsadii horta waan u mahad celiyay dawladdan ayada Semberi line ministry and trade muxuu ahaa development waxaa jirta ganacsada inta badan cabasho iska jirta wixii lama koobi karo waxyaalo badan baa iska jira waxba ka qaban karin laakiin MOU baan la galnay anagoo macnaha xafiiskeena National Government National Chamber of Commerce MOU-ga uu yahay waxyaalo badan oo macnaha isla wada qaban doono warqabid ma ilaahay ma wajirta oo macnaha Gaarisa County tana uu mahad celina waxaa kamid ah shalay waxaa jirtay program lagu launch garinayo Nairobi habeen horena macnaha lagu kala saxiixday Mombasa programka asagana waxa weeye waa investment macnaha forum ee qolada amaan iska leeyihiin xagga macnaha wali waxa laga hadlay livestock livestock production iyo livestock marketing ay xogeeyaha wasaaradda becsharada iyo dalxiiska maanta meeshan waa arrin taariikhi baan maarta ku sameeynaynaa waa sidii liin sheegay oo wasiirka weyn sheegay iyo walaalkii Abdullaahi weyn sheegeen arrintan lama ogaanin hadda ka hor lama ogaanin meeqa becsharada wadanka yaasha maxaa becsharada maxay kala tahay meeqa noocay kala tahay ma la ogaanin maalgelinteedii lama ogaanin waa arrin aan rabno in la ogaado oo ay dadka waxyaalo badan ay ka ogaadaan waa arrin muhiim ah anaga becsharada dadka becsharada wasaaradda becsharada waxa loo sameeyay dadka becsharada sameystaan inay maaragtay becsharada ku weyneeyaan inay becsharada ku horumariyaan yaa loo sameeyay marka taa aawadeed waxaan rabnaa inaan horta ogaano dadka aan isla shaqeyn lahayn yaa waay dadka aan isla shaqeyn lahayn meeshay kala joogaan meeshay ku kala noolyihiin cinwaankooda wax walba inaan ogaanaan rabnaa